بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتها بندا وديال ugu soo biir oo YouTube ka subscribe noo saar noona share garay mahadsanid mawduuceena sida aad title ka soo aragteen waa faa'iidada akhriska waxaan ku arki doonaa dhowr qaybood oo loo qeexay faa'iidooyinka akhriska iyo dad caana oo ka hadlay faa'iidada uu akhrisku leeyahay maskax ahaan ama qof ahaanba akhriska waxaa laga helaa warbixino cusub wadooyin cusub wax lagu xalin karo wadooyin badan oo guul ku gaari kartid akhriska wuxuu kor u qaadaa horumarka naftaada hor u socodka higsiga sare kalsoonida saameynta qorshayaal cusub iyo nidaamka noloshaada aad ku dhisi lahayd si aad u gaarto han sare sidoo kale akhrisku wuxuu kor u qaadaa fahanka maskaxda qofka wuxuuna siiyaa qaabo hor leh oo qofku wax u aqoon karo una fahmi karo waxa uu na fahansiiyaa waxyaabo markii hore qofku uusan fahansanayn akhriska waxaa laga helaa khibrad aqoon farbada taasoo ay kula wadaagayaan dad iyagu qoray hadba buugga akhrinayso akhriska waxaa laga helaa xasiloonida deganaanshaha fahanka iyo wax walba inaad ka fiirsato iyo inaad waqtigaada teem u yeesho ma jiro qof aan aqoon sida wax u cuno mana jiro qof aan aqoon sida wax u cabo taasi macnaheedu qof ma jiro dhahaya waqti aan wax ku cuno ayaan waayay balse akhriskuna sidaas oo kale ayuu la mid yahay oo waqtigaada qayb ka mid ah haddii aad siisid wuxuu kala mid noqonayaa cuntada cunto oo kale maskaxdana wuxuu u yahay si freesha sidaasi waxaa yidhi Dr. Sajid markaan soo qaadana dadweynaha ka hadlay faa'iidada uu leeyahay akhrisku mar wax laga weydiiyay suugayahankii caanka ahaa ee reer Masar Abbas Mahmoud Aqad 1889 ilaa 1964 mar wax laga weydiiyay wuxuu ku jawaabay uma akhriyo si aan wax u qoro umana akhriyo si aan cilmi u kororsado balse waxaan u akhriyaa si aan u helo wax ka badan hal nolol adduunka qof walba wuxuu leeyahay hal nolol balse anigu waxaan doonayaa in ka badan hal nolol akhrisku waa shayga kaliya ee siinaya nolol badan taasi oo way aragnimo nolosha ay kordhinayo qof walbana waxa uu leeyahay hal fikrad hal dareen sidaa darteed markii aan buug akhrinayo waxa ii soo baxaya fikradayaal badan taasi oo fikradayga ku biiraya macnaheedu waxay tahay inaan dhowr fikradood helayo markaasna maskaxdaygu ay awood yeelanayso sidoo kale culimadii hore ee islaamka akhrisku waxa uu ka ahaa agtooda shay ku qaaliya wuxuuna ka mid ahaa nolol maalmoodkooda oo ku mahadsantiin daawashadiina iyo la socodkiina fadlan nagu soo biir oo YouTube ka subscribe noo saar noona share garay muuqaalka si uu saxaab kale u gaaro oo ku mahadsantahay daawashadaada nabadgeliyo